Arsenal mise Manchester United kooxda uu taageero halanka cusub ee Gunners iyo Red Devils ku tartamayaan oo la ogaaday balse daawada intaan warbixintan u gudagelin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like gareyso sidoo kale aad soo follow gareyso kaba sii wanaagsan haddii aad u share gareyso saaxiib adiga oo kale waad ku mahadsantahay la socodkaada weeraryahanka da'da ee xulka Denmark iyo kooxda Atalanta Rasmus Højlund ayaa dunida si weyn isku baray kulamada Israa'iilka Euro 2024 ee uu dalkiisa ku batalayo Højlund oo xilli ciyaareed cajiib ah qaadanaya ayaa labadiisa kulan ee ugu horeysay ee uu Denmark u ciyaaro oo toddobaadkan ahaa 5 gool ku soo dhaliyay kulankiisa ugu horeeyay ee uu ciyaaro Denmark ayuu 3 ley ka soo dhaliyay xulka Finland waxaana uu raacsaday 2 gool kale oo ka dhaliyay xulka Kazakhstan Rasmus ayaa xagaagii hore ku soo biiray Atlanta oo haatan boos joogto ah ka haysto heshiiskiisa kooxda ayaa 2022 ku eg wargeyska Daily Mail ayaa sheegaya in kooxda Talyaaniga ay lacag ka badan 40 milyan oo euro iibkiisa ku doonayso Arsenal ayaa ah kooxda ugu badan ee lala xiriirinayo haatan xilli Mikel Arteta xagaagan doonayo inuu halkaas ka sii ambaqaado xilli ciyaareed wanaagsan oo haatan ku jiraan laakiin warka waanu farxad badan u ahayn Gunners ayaa ah in 20 sano jirkaas uu sidoo kale lala xiriirinayo kooxda Manchester United oo uu taageero weyn u yahay kooxda sida uu isaguba hore u sheegay Højlund ayaa markaas u sheegay inuu Red Devils taageero weyn u yahay sidoo kale xusay inaysan taasi ka dhignayn in mustaqbalkiisu diidi doono dalabaadka kooxaha kale